السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتها بوندا وديال ملوبو أن نقدر ونيسان كسر دوادا ورئيس جارة وعنا يلناي شيخ عبد الرشيد علي نور أو علماء كونوا دلكني كيان جارهان مقالة نيروبي تدوينها مقالة نيروبي نايسي هذا وقرنا يعني إسلام كان قراءة ترجمة لغة عربية وحاولنا دبلومة كايستا بيرها sidoo kale waxa uu laba bachelor ka haystaa macalinimada iyo waliba sharciyada Soomaaliya Sheekh Cabdirashiid waxa uu qoray buugaas aad aragtaan ee ah iska ilaalinta iyo iska daweynta cudurka sokorowga dhakhtar la'aan waxaan ka wareysan doonaa sheekha sababihii ku dhaliyay buugan inuu qoro iyo waliba qofka sida uu isaga ilaalin karo cudurka sokorowga iskana daaweyn karo asagoon dhakhtar aadin waxaan jeclaan lahaa inta aan marka hore u gudagalin wareysiga marka hore inaan sheekha ku soo dhaweeyo TV-ga Somsad sheekh marka hore ku soo dhaweeyo TV-ga Somsad waa dhawahay khayr Allah nasiyo jazakumullahu khayr sheekh marka hore waxaad nooga warbixisaa inta aan u gudagalin dulucda buuga ama qofka sida uu sokorta isaga daweyn karo asaga oo dhakhtar tagin ama uu isaga ilaalin karo waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan ku weydiiyo waxyaabihii kugu dhaliyay inaad buugan qorto بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ساد أكسونتهين عذر كان والسكروج ضد ضنبه هيا وحنا كمدي هاي بلايوينك أما دباتوينك ما أنت أدونك آد وصوب بدنا يا يكسو وقتها صوب بلودين لكن وقت يلا عند بآد وأسو زائدين كنتينا وحي كقريهم بوقتا dadka dhakhaatiirta ay qoreen ama luqooyinka ingiliishka ama carabiga dadkeena Soomaaliyeedna saad ogtihiin waa dad aan badanaa luqooyinka aad aan u aqoono inta wax qortiyo inta wax akhridaaba yar sidaas daraaddeed waxaan jeclaystay maadaama ay u badan yihiin luqada Soomaaliga inay wax ku akhrin karaan ama ay ku qori karaan in aan u tarjumo ama aan buug af Soomaali ku saabsan anoo ka faa'iideysanaya waxyaabaha dhakhaatiirtu ay ka qoreen oo maaragtay aan ka baxaynin mawduuca ayaan buugan isaga ah ayaan tarjumay waxyaabo badan oo macluumaad oo kale oo kala duwanna aan dhexdiisa dhigay waxaana doonayay bal inuu furo u noqdo dadkaas faraha badan oo jiran oo sonkortu hayso bal inay noocan ma buugan markay akhriyaan haddii ay sokortu haysana ay la noolaan karaan oo macluumaadka iyo talooyinka buugku siinayo ay ka faa'iideystaan haddii aan weli sokortu ku dhicina inay iyaguna akhriyaan oo ay iska ilaaliyaan waxyaabaha cudurka sokorowga keeni kara ay iska ilaaliyaan oo ay si wanaagsan iyaguna ay ugu diyaar garoobaan sidii usa ugu dhici lahayn waad mahadsan tahay sheekh su-aasha ugu horeysa aan ku weydiin rabo waxay tahay horta cudurka sokorowga sidiisaba muxuu yahay cudurka sokorowgu waxa weeye cudur laba siyood buu ku yimaadaa mid waxa weeye jirka ayaa maaragtay wuxuu soo saarayaa maaragtay insulin yar sida ogtay markay qofku raashinka cuno raashinka dheefshiidku maraya ilkaha ayaa burburinaya haddana dhacaana ayaa kusoo darmaya isla afka maaragtay gudihiisa kabacdi way sii soconaya caloosha ayuu isu gudbinaya ama mindhicirada mindhicirka weyn ayaa markaa isagana ama mindhicirka yar bay la falgelaysaa raashinkii qurbiyo yaryar iyadoo ah kabacdi markaas waxaa dhacaysa waa la kala miirayaa cunadii qayb waxay noqonaysaa qayb maaragtay nafaqo iyo jirka uu u baahan yahay oo uu tamartiisa ka dhalinayo sida carbohydrateski markii hore uu soo bilaabay cunitaankooda markaas waxa weeye laba siyood weeye markii ay insulin buu soo saaraya pancreaska ama ganaca organka la yiraahdo ama xubinta la yiraahdo ayaa waxay soo saaraysaa insulintaas marka ama kamiyo yar bay soo saaraysaa oo ku filayn inay ridaha u furto cunada iyada ah oo wadata sokorta si jirka oo dhan xubnaha ku wada gaari lahayd marka insulinta u furaysa marka insulintii ka timi pancreaska ama ganacu waxay markaa insulin yar baa ganacu soo saaraya oo ku filayn inuu jirkii gaarsiiyo maaragtay
sokortii ama wuxuu soo saarayaa maaragtay insulin fara badan oo zaa'ida oo beer dara ayuu soo saaray markaasay kaadidii soo raacaysa labada arrimood bay macnaha sonkortu qofka u qabataa jirkii marka ma gaarayo sonkortii ma gaarayso maadaama aysan jirkii sonkortii gaarin taasi waxay la mid tahay marka tamartii ruuxu ma helayo tamartu u baahnaa ma istaagi karo ma socon karo wax ma arki karo marka halkaas culayskaas ila qofkii sonkortii markaas waxay u baxaysaa kaadi ahaan bay u baxaysaa noocaas weeye marka waxay oo dhan oo nafaqadii o dhan kaadi ahaan bay u baxaysaa marka sidaasay marka sokortu ku timaadaa waa insulintaas waxaa ugu muhiimsan inay iridaha u furto sokortaas ama glucooskaas waxaa la leeyahay oo nafaqadii ah si ay macnaha u gubo jirku u gubo ta kale jirku inuu murqiyo leeyahay weeyo haddaan qofku jirkiisu murqiyo lahaynoo uu qofku iska bashaqi yahay ama uusan murqiyo iyo waxaas lahayn oo awood lahayn iyada lafteedu waxay keenaysaa inaan maaragtay aysan mari karin maaragtay glucooska marka sokortu waa noocaas sheekh cabdirashiid qofka marka uu qabo cudurka macaanka oo kale maxay yihiin astaamaha qofka uu ku garan karo marka uu cudurkaas ku dhaco laba astaamood baa ugu muhiimsan astaamta koowaad waa kaadi fara badan ruuxii leannahu wax alaale wixii jirkiisa ku jira sokortii oo dhan kaadi bay u baxaysaa marka jirkii ma intifaacsanayo waana curyaha ugu muhiimsan sonkortu jirka curyaha ugu muhiimsan ay u baahan tahay leanna waa midda tamarta ama awoodda ay ka dhalato hadday gubato tabartii awooddii baa dhalanaysa haddii kale waxa weeye kaadidaas faraha badan bay soo raacaysaa tan labaadna waxa weeye qofka haraad fara badan mar walba u haraadan yahay biyo cabaa u haraadan yahay biyo cabaa u haraadan labadaas baa ugu muhiimsan oo lagu garto waa maxay dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan macaanka cudurkan macaanka ay dhibaatooyinka uu leeyahay dhibaatooyin fara badan buu runtii ruuxa u keenaa wuxuu u keenaa kan qeybta koobaad ruux wuxuu noqonayaa ruux caata ah oo jirkii maba gelayaba ila insulin ma soo saarayso ku filan jirkii maba gelaysaba sokorta iyo nafaqadii qofkii weak buu noqonayaa ilaa uu iskaga dhaco meel tan kalena waxa weeye isagana xubnihii sidii la rabay uma gaarayo insulintii baan iyaduna iridihii furi karin waxaana badan qaybtan maaragtay qofku wuu cayilayaa marka cayilaya cayil badan buu isu arkay tanaana badan 90% ilaa 95 waa tan koobaadna waxa weeye ilaa 6 ilaa 10 wey marka astaamaha waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah qofkii oo mathalan ba ay kelyuhu tiraysaa kelyihii bay baabi'inaysaa dhibaatooyinka ay gaarsiiso waxaa ka mid a kelyuhay baabi'iso wadnaha ay maaragtay iyadana wareento oo maaragtay cudurka wadnaha qofka uu ku dhaco waxyaabahaasa ka mid a waxaa ka mid a nabarada qof ka soo baxo biskoon waaya nabaradu ma biskoonayaan waxaa weeye ruuxii araggiisa eber buu noqonayaa week buu iska noqonayaa waxyaabahaas baa ka mid a dhibaatooyinka ay gaarsiinayso xataa mararka qaarkood markii dambe qofka uu kooma galo oo saas maaragtay ku dhinto sheekh cabdirashiid waxaan kaloo ku weydiiyey qofka xilli muu u baahan yahay inuu dhakhtar u tago marka uu sokorta qabo marka uu ruuxu sonkorta qabo maraliya markuu iska dareemo inuu sonkor ay ku dhacday waa in ruuxu u tagaa maaragta dhakhtar qofkaas sonkorta qabana waxaa laga doonayaa inuu macnihii halkii sanaba check-in up isku sameeyo check-in up halkii sanaba inuu hal mar isku sameeyo uuna mar walba dhakhtarkiisa la tashado oo dhakhtarkiisa uu tago oo la tashado sheekh waxaad sheegtay in cudurka sokorowga uu leeyahay dhibaatooyin fara badan oo u geysto indhaha iyo keliyaha sida aad sheegtay qofka qabo cudurkaas macaanka sidoo uga hortagi karaa dhibaatooyinkaas inay ku dhacaan hadduu qofkani uu qabo sonkorta waxaa laga doonayaa dadaal baa isaga laga rabaa dadaalka waxaa ka mid a inuu ruuxu macnaha cunada u cunayo ay noqoto cuno isu dheeli tiran sida innaga hadda soomaalida oo kale dhiijiskooda waa ogtahay ama marka ay raashin ay keensanayaan hilib iyo bariis fara badan baa gab laysku siinaya waxaas looma baahna waxaa la rabaa saxan in yaroo hiliba uu saaran yahay oo saliidda ku yartahay saliid lahayn in yaroo maaragtay geedmiroodka khudaarta ay saaran tahay
iyaroo macnaha saladkii iyo kaabajkii iyo waxyaaba waxa isu dheelitirana cunadii oo dhan ka kooban oo la dhihi karo tanna wuxuu ka helayaa fitamiin tanna carbohydrate tanna wuxuu ka helayaa maaragtay protein kanna wuxuu ka helayaa sinki tan wuxuu ka helayaa macnaha nafaqooyinka oo dhan isu dheelitiran oo aan aadna u badnayn oo ruuxii uusan maaragtay uusan dhereg badan uusan dhergeyn ilaa uu ka daco qurmo sheekh ma noo sheegi kartaa cuntada ugu wanaagsan uu qofka uu cuni karo markuu sokorta qabo cunnada ugu wanaagsan oo ruuxa uu cuni karaa waxa weeye kow waxyaabaha hadda dhakhaatiirtu ay yidhaahdaan waxaa ka mid ah inuu iska ilaaliyo hilibka baruurta leh oo isticmaalo maalanba digaaga iyo waxaan la yidhaahdo maarata kalluunka inuu saliidda isticmaalayo ay tahay olive oil inuu isticmaalo ama saytuun saynu inagu u naqaano taas inuu raashinkiisa dhan uu isticmaalo oo raashinkiisa dhan meel loo dhigo uu maarata markaas ku darsado wax alaali wax cunayo iska ilaaliya saliidahan kaloo caadiga ah weliba saliidaha waxaa ugu daran midkan subaga inagu aynu leenahay subaga xoolaha waa aad buu u xun yahay ugu daran yahay ruuxa maaragtay sokorta qaba wuxuu isticmaalayaa maalan vegetable oo dhan wuu isticmaali karaa wuxuu kaloo isticmaali karaa cambihii wuxuu isticmaali karaa haddii wax kaloo gaas iyo cudurro kale usa qabin wuxuu isticmaalayaa tufaaxa wuxuu isticmaalayaa adugu liinta waxyaabahaas oo dhan ayuu isticmaalayaa marka waa inuu iska ilaaliyo hilibka baruurta leh saliidda waxay ku badan tahay saliiddu isticmaalayana waa inay noqoto saliidda geedaha khaasatan midaan saytuunka oo aad maaragta waxba qofka ka dhimaynin aad iyo aada u fiican cunadiisuna inay soo dheelitiran tahay waxaa kaloo laga doonayaa qofka sokorta qaba inuu socdo socod dheer inuu sameeyo ama uu mararka qaar cayaaro ama kubad ha cayaaro ama maaragta ha ordo ama meelaha jiimka ah waqtiyada qaar intuu tago ilaa 1 saac iyo bar 2 saac maalintiiba ha sameeyo ama ha soo wareego maaragtay ilaa uu ka dhidido yaanu dhididkaas wuxuu caawinayaa in maaragtay jirkii insulin ay sokortii la gubo ay sokortii la gubato ayuu caawinayaa waxyaabahaas oo dhan baa macnihii uu samaynayaa ruuxu midda kale haddii uu qaato daawada insulintana inuu siday tahay oo isticmaalo uusa u googoyn yaa laga doonayaa iyada sheekh cabdirashiid ma noo sheegi kartaa sababaha keena in caruurta yaryar ay ku dhacdo sokorta dadka waaweyn dadka badanaa waxay aaminsan yihiin qofka markuu weynaado in sokorta siyaabo kala duwan ay ugu imaan karto inay dhaxal ugu timaado inuu qofkii problem iyo waxaas ay ugu timaado sida dadka badanaa ay aaminsan yihiin marka caruurta yaryar ee sokorta qabto maxay tahay sababaha ku keena cudurkaas ilaa 95% wax boqolkiiba ku dhow badanaa waxay ilmaha yaryar sokorta ay ka qaadaan iyagoo waalidkood ka dhaxla laakiin xaalado kale waa la arkay oo sababta ay ugu dhacday aan la garanayn laakiin ilmihii la arkay isaga oo sokorow qaba aan la garanayn laakiin sababta ay ugu dhacday waxyaabaha waxaa kaloo jira haddii ilmaha infection ku dhaco oo infectionka laga daaweyn waayo wuxuu u wareegi karaa xagga bankariyaska ama ganaca inuu infectionkii gaaro infectionka haddii uu gaaro ganacana markaa waxaa dhacaysa insulinti inuusan soo saarayn marka ganaci insulinkii jidadka u furayay sonkortii jirka wada gaaraysay si ay ku gubato taasina way keentay sheekh sidee buu u ilaalin karaa qofka heerka sokortiisa ama inay sokortiisa kor u kacdo ama inay hoos u dhacdo qofkii koma uu galo maxay tahay talada ugu wanaagsan ama sida ugu wanaagsan uu qofka sokortiisa u ilaalin karo laba siyood weeye hadduu ruuxu ilaa iyo 50 iyo wixii ka sarraysa gaaray horta inuu iska tijaabiyo way fiican tahay sokortii iska eego oo maaragtay uu check-in up jirkiisa ku sameeyo sokortiisana uu ka bilaabo taasi waa saas haddiise qofku isagoo yar leanna waagii hore waxaa la dhihi jiray sonkortu waa cudurka dadka waaweyn maa fowqa 50 runta waxay ka badan yaa la oran jiray laakiin waayahan dambe waxaa soo batay dad 20 ama 20ba ka sii yar in lagu arkay sababta ay ugu timina aan la garanayn qaarkood laga yaabo inay macnaha heredity tahay laakiin kuwo kaloo aan la garanayn sida taasaan sheegnay marka sidaas daraaddeed mar allihi marka ruuxu iska dareemo calaamadihii sokorowga waa inuu dhakhtar u tago taasa ugu wanaagsan oo iska baaro sheekh cabdirashiid dadka badanaa sokorta qabo
waxay aaminsan yihiin malabka haddii ay cunaan inuu malabka ka mid yahay waxyaabaha macaanka isla markaana dadka sokorta ku caawiyo marka waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo horta qofka sokorta qabo ma isticmaali karaa malabka dhakhaatiirta hadda waqtiyadan dambe tijaabooyin laga sameeyey waddanka sacuudiga iyo kuwo laga sameeyey waddanka maaragtay suudaan iyo kuwo kaloo jarmalka iyo maraykanka iyo meelo badan laga sameeyey waxay caddaynayaan in ay ku jirto malabka shinnida maado sida insuliinka oo kale ah oo la falgeli karta insuliintii oo jirka anfici karta laakiin malabyadu waa kala duwan yihiin malab haddii shinnida loo dhigo maalanba sonkor ama glucose ama cinab loo dhigo oo kale oo aysan geedo kala duduwan iyo ubax kala duduwan aysan soo daaqin waxaa laga yaabaa inay sonkortu macnaha ay ku badato malabkaas oo kale malabka laakiin waxa ugu fiican bay yidhaahdaan malabka marka uu bislaado oo madoobaado oo isagoon wax camaliyaa iyo karin iyo gubid midna lagu samayn uu muddo badan inta yaallo markaas uu madoobaado malabkaasa ugu fiican bay yidhaahdaan wa ilaa malabyada macnaha gedigood laguma wada kalsoonaan karo sheekh cabdirashiid sidee loo ogaan karaa ama qofka sokorta qabo siduu ku ogaan karaa in sokortiisa ay hoos u dhacday wuxuu ku ogaan karaa ruuxa inuu sonkortiisu ay hoos u dhacday inuu isku arko gargariir ruuxa marka hore uu gargariir isku arko kabacdina markuu fariisto uu noqdo qof seexday oo kale laakiin dadku wax seexday bay u malaynayaan laakiin isagii miyirkiisiibaa maaragtay sii tegaya marka dambena inuu kooma galo ayaa laga yaabaa marka sidaas waxaa ugu badan calaamadaha gargariirka oo ruuxa uu samaynayo iyo isagoo hurdadii aan doonayn inuu ka kaco zaclaan ah markaasaad dareemaysaa inuu ruuxa sokor qabo marka waxaa la doonayaa dadka faamilka la nool inay u wada tababaran yihiin ruuxan inay ku duri karaan markaa insuliintii inay ku duri karaan oo ay u tababaran ay garan karaan calaamadaha markay ku arkaan waa inay garan karaan insuliintii lagu duro markaas ayuu ruuxa markaa la badbaadin karaa laakiin haddii aan la aqoon midda kale waxaa fiican hataa waxaa laga yaabaa isagoo dariiqa maraya inuu iska dhaco ama siduu ku dhaco mar walba kaarkiisa maaragtay inuu jeebka ku wato yaa ruuxa fiican si loo aqoonsado oo markii la arka isagoo meel ku dhacay waa la baarayaa dadka yaqaanaa oo calaamadaha sokorta ka yaqaanaa way fiirinayaan hadda sida soomaalida oo kale oo qofka dhuganaya isbitaal hala geeyo intay leeyihiin oo xagga dhuganayaan waryaa qaadada qofka laga yaaba inuu iska maaragtay dhib gaaro laakiin dadka adduunka oo xogee wacyiga u leh arrimahaas ama soo arkay waayo aragnimo dad qaba way garan karaan markiiba waa lala ordayaa isbitaalka ugu dhow insuliin baa lagu duraya marka waxaad kula talinaysaa in qofka sokorta qabo uu magaciisa iyo inuu sokorta qabo iyo inuu sokor qaboba meesha kaarkiisa uu si markay dadka arkaan ay caawiyaan waad mahadsan tahay sheekh waxaan kaloo ku weydiin lahaa sokorta waxaad sheegtay inay dhibaatooyin fara badan ay leedahay cudur kastaba waxyaabo gooniya lagu kala gartaa intii waa kasoo wada hadalnay sokorta horta sideeda imisay u qaybsantaa sokorta laba qaybood bay u qaybsantaa qayb waxaa weeye midda koobaad la yidhaahdo ama buugkas iyo kitaabka soo ad akhrido waxaad arkaysaa qaybta koobaad qaybta koobaad waa qaybta ruuxa jirkiisu uusa soo saarayn insuliin ku filan uusa soo saarayn ama insuliinta xasaasiyad uu ku yahay jirkiisu oo insuliintiibuuba la dagaalamaya marka insuliintii soo baxdo oo ay rabto sokortii inay iridaha jirka u furto waxaa ka hor imanaya marka dagaal yaa ka hor imanayo unugyada cascasoo dhiigga difaaca jirka maaragtay jeermiska difaaca waxay u malaynayaan inuu waxaan yahay maaragtay jeermis jirka soo galay way la dagaalamayaan way sardinayaan meeshiina marka waxaa ku baaba'aya insuliintii yaa meesha ku gubanaysa qaybtaas waa qaybta yar oo 6% ilaa 10 bay ka tahay qaybta labaad waa qaybta dadka u badan yahay oo u badan dadka waaweyn ayay u badan tahay dadka ilaa 40 iyo waxay ka sareeya ama ilaa 50 iyo waxay ka sareeya oo dadka gaboobay iyo dadka waaweyn ay u badan tahay ama waa mid dadka cayilan ku dhacda iyada taas hore mid dadka caatada ku dhacda dadka cayilinaysa marka qofka waxa loo qabaa hebel maanta waa cayili ma hebel waa cayishay laakiin waxa laga yaabaa inuu sokor qabo taasina waa noocaas oo waxa weeye insuliintii jirkii baysan sida ahayd u wada gaareen sheekh cabdirashiid
cudurkan horta sokorowga sidiisa wuxuu ku yimaadaa cudurkan sokorowgu wuxuu ku yimaadaa saynu sheegna waa laba qaybood qaybta koobaad badanaa dhakhaatiirtu way ku daaleen inay caddeeyaan waxa uu ku yimaado laakiin qaybta labaad wuxuu ku yimaadaa cayilka faraha badan ruuxa uu aada u cayilo uu jirkiisa baruur badan ay saaran tahay isla mar ahaantaa ruuxii dhaqdhaqaaq iyo socod iyo midna uusa samayn iyo inuu cayaaro iyo inuu isdhididiyo inuu wax badan socdo midna uusa isku dayin oo ruuxi maaragtay uu meel iska fadhiyo cunadana uusan yani miisaamayno cunno oo healthy oo caafimaad qabta uusan cunayn sida inuu baruurta iska cuno oo maaragtay maqaayadaha inta tago maaragtay hadda baruurta iyo hilibka baruurta lan weligeeba anugu cunaa uu yiraahdo ama subaga iyo waxyaabahaas isticmaalo oo ruuxi uusan u aabayeelin waxyaabahaas oo dhan taas ayay ku timaadaa sheekh cabdirashiid waxaa jira dadka sokorta qaba badi inay indhahooda markaad aragto kalarkooda uu guduudan yahay ay dadka kale xoogaa indhaha ay ka duwan yihiin marka maqafka markay sokorta ku dhacdo meesha ugu horeysa ee ay ka asiibayso ma indhaha oo ama meesha yar ee ta'tiirka ku reebanaysa marka ugu horeysa qafka ku dhaco ma indhaha ah mise waxaa waaye qafka asagaa dabiici iska oo marka sokorta jirkiisa soo gashaba isagoon xanuun iyo dhibaato indhaha ka dareeminay kalarka indhihii isbedelayaan saynu hore usoo sheegno oad ogtahay waxaa weeye waxayaa meelaha ay asiibto meelaha ugu horeeya wey indhuhu marka sidaas daraaddeed ta'hiir bay ku yeelanaysaa haddii aan markaa daawadii munaasabka ahayd la qaadan oo aan qofku uusan markiiba bedelin qaabkiisii oo dhan inuu bedelaa la rabaa muddo dheer buu qofku la noolaan karaa wax dheer buu loo noolaan karaa iyadoo laga yaabo hadda qofku inuu ilaa 8 sano isagoo qaba uusan weli ku dareemin baaba laga yaabaa midda kalena sidaas daraaddeed marka waa inuu qofku mar allaaliyo markii uu dareemo indhihii iyo wixii iyo daalka faraha badan iyo maaragtay yani indhihii oo si fiican usoo wax uga jeedin waxaas markuu isku arko inuu markiiba tagaal rabaa dhakhtarka oo isa soo baaro sheekh cabdirashiid waxaa jirta in haweenka sokorta qaba isla markaana ku jira xilliga ay wax dhali lahaayeen ama xamliga ay qaadi lahaayeen haweenkii ayadoo cudurkii qabta macaanka haddana ay uur yeelato oo ay dhasho ilmihii marka qofka haweenka noocaas oo kale ayagoo sokorti qaba haddana caruurta dhalaaya oo kale dhibaato intee leeg ayay sokorta u geysan kartaa ayaga nafsiyan markii la fiiriyo iyo caruurta markaas ay dhalayaan ay caloosha ku wadaan horta khasa maaha inay ilmaha ku dhacdo sokortaasi kuwa ku dhacdayna waa la arkay kuwa isa ku dhacayna waa la arkay laakiin iyada lafteeda maaragtay dhib bay u keenaysaa oo maaragtay maalan baa ilma galeenka waxay u keentaa meelaha ay furtigaraysa ka mid tahay oo ay wax yeesho ilmaha ilma galeenka iyo maaragtay yani xataa dhashadeeda nabaro iyo waxyaabo fara badan baa soo gaara qofka hadduu mar sonkorta qabo marka dhibaata u keentaa marka waxaana laga yaabaa inay maaragtay dhibka ay keentay qofku marka dambe ayba dhali weydo oo ilmuhu ay ka tagaan taasna waa macquul kuwa yani aysa ka teganna waa la arkay laakiin taasna macquul sheekh cabdirashiid haweenka xamliga qaadaya isla markaana sokorta qaba ma jiraan waxyaabo markaasi ka baxsan markii dadka sokorta qabo ee caadiga ah dadka dhalinyarta oo kale ama dadka da'da ah markii laga soo tago dadkaas waxyaabo gooniya ay u baahan yihiin waxyaabahay u baahan yihiin waxay kala mid yihiin dadka sokorta qaba yay kala mid yihiin midda kalena waxaa la doonayaa inay sida dadka sokorta qababa mar haddii ay daawo loo bilaabay waxaa jira dad maaragtay weli daawo aan gaarin sida maaragtay irbadoo kale oo kinin iyo waxaas ku sugan ama raashinka toosintiisa oo dee ay ku yar tahay iyo dad markay insulinta gaaraan inay insulinta isku duraan weeye iyaguna nadaafadoodana ay si fiican u ilaaliyaan qofka waxaa la doonayaa hadduu sokorta qabo inuu nadaafadiisa ilaaliyo inuu maalan ba maaragtay yani aad mar walba uu يعني نظيف وياهي إنه كبقى حرام أو ضبالا لأنه هدي نبر جاره روح عبدو سكر قبو بدون نبر جاره هروب بسكون مايو كواها إنه مارته ولي بكبتش العسن أو وهابون لقطة أو
أي مارت الراحة ودريمي أيهن سكس إنه مرور بقاطه سي معنيه النبرة دي هو السجاء العالي سيدا سكرة قفت الدمر كان يلا لفت القلين كي وحياها صديه مركا أي دوايسو القلو يوحى لمده أما جوين تمرك الجوين المصاب يعني وحصلنا وديويس حصلنا وديويسا هسيه شهد مرة ضي المرأة ليس هو خصبنتها سياس دراد لكن وإن تحدثت النظافة هذا أي مارت آدو إلى لسه مركا أي حتى حمل قال تهي أي ولويسه سيدي مارت بدن وجاي ماذا إن راشين كمارت سن وشجني راسين وناكسن سؤال الترن إنه استعماشه أنت واحد كلامته مارت ذاتكاسي كلامته إن شق عبد الرشيد وحاجرت إن ذاتك ووينه ويلدا marka laga soo helo cudurka sokorowga oo kale oo la yiraahdo qabtan wuxuu qabaa cudurkaas macaanka ah wuxuu u baahan yahay daawada noocaas ama noocaas inuu qaato waxa laga yaabaa dadkii inay diidaan inuu qofka waayeelka ah uu ka diido daawada ku yiraahdo ma cunaay daawo uu ku yiraahdo bal ka waran qofka asagoo sokor qabo haduu daawadii diido uu qaadan waayo de markaas qofkaas waxa weeye waa qof iska quustay lamana doonayo qofku inuu iska quusto cudurkaas sokorowgu waxa weeye waa cudur musiibo oo xun hase yeeshee qofku wuu la noolaan karaa haddii siyaabii hadda aan sheegaynay oo kale uu la dhaqmo oo daawadiina si fiican u qaato mar walbana uu dhakhtarkiisa la socdo cunnada uu qaato cunnadii isu dheelitiray waxyaabaha sonkorta badan leh iyo waxyaabaha leh maaragtay inuu iska hataa shaaha inuu iska yaraysto shaahi iska yaraysto iyo kafeega iyo waxyaabahaas badanaa way dhibaan inuu ruuxu maaragtay haddii uu daawadii oo kiniina uu qaadan waayo marka waxay dantu ku khasbaysaa in lagu duro oo maaragtay insulintii jirka laga siiyo saasay dantu ku khasbaysaa marka sidaa in loo yeelaa fiican isaguna inuu maaragtay ilaahay aamino oo inuu la noolaan karo waxaan dad baa ilaa 20 sano 30 sano 40 sano la noolaada iyaga oo taxadarka ku socda taxadarka iyo balance diet ka waxa la leeyahay cunnada isu dheelitiran iyo waxaas soo ku socda ayay ilaa 40 sano 30 sano la noolaadaan marka inuu qofku hadii la yiraahdo sokor baa kugu dhacday uu markiiba maaragtay naxo oo isagu uu maaragtay jirkiisii sida ku sii dhaawaco ma aha ma haboona sheekh cabdirashiid cunooyinka dadka caadiga ay cunaan oo kale sida baastada iyo bariiska burka aan canjeerada ka samaysan oo kale qofka sokorta qaba ma cuni karaa cunooyinkaas oo kale qofka sokorta qaba waxyaabo waxaa jira maaragtay cunooyinka qaar oo kale waxay sokorta ku badan tahay looma ogola مثلا بالروتيga iyo hadda canjeerada sheegayso rootiga in loo soo galo fiican midkaan laga sameeyo qamadiga ka in loo soo galo waxyaabaha bariiska oo cuna kara ruuxu laakiin aad inuu badsado ma aha laanna sokortiisa badan bariiska waxyaabaha qamadiga ugu fiican qamadiga galeyda masagada raashinka firaaleyda la yiraahdo oo leh maaragtay qolofta leh raashinkaas aad iyo aad ugu munaasaba u fiican marka raashinadaas inuu isticmaalo weeye laakiin مثلا baastado kale marmar uu cuni karaa laakiin baastadu maaragtay sida bariiska kale weeye iyaduna ukunto kale inuu badsado ma aha laakiin weygii ilaa dhowr xabo uu isticmaali karaa ilaa 4 xabo laannahu uu u baahan yahay qofku naguna hadda dadkeena Soomaalida xataa aad uma isticmaalaan ukunta hataa dadka aan qabin maal sokorowga in la isticmaalaa wanaagsan ruuxu weygii la yiraahdo ilaa 5 ama 4 xabo oo ukuna inuu cuno laannahu dadka tabar iyo xoog bay siisaa oo aad bay u fiican tahay marka ukuntana saas weeye in laga yareeyo weeye marka waa inahaas maaragtay hataa hadduu u baahdo maaragtay raashin kasta oo ruuxa waa looga dhigi karaa ruuxa waa loo habayn karaa keliya oo dee isagoo si gaara loogu samaynayo saliidda laga yaraynayo sokortii xaggeeda maaragtay waa loo samayn karaa ruux hataa shaahi wax loo samayn karaa shaaha sokor badan lahayn وهكذا wuxuu isticmaali karaa sonkorta caadiga oo loogu talagalay dadka diabetiska qaba ay isticmaalaan buu isticmaali karaa laakiin inuu iska socdo sida dadka kale ma hilibka iyo caanaha kale maxay cuni karaan caanaha oo isticmaalaya ruuxa waa uu isticmaalay waliba wuxuu isticmaalay caanaha dufanka aan lahayn maaragtay hadda KCC da caanaha la yiraahdo caanaha lo'da oo dufan badan yihiin caanaha geelo kale waa munaasab aad ugu ah waxa kale oo soo raaci kara
caanahan kale oo laga miiray subagga kuwaasina way soo raaci karaan caanaha aad buu isticmaali karaa hilibkana wuu isticmaali karaa laakiin hilib karsan inuu yahoon la shiilin kow inuusan baruur lahayn baruur inuusan lahayn oo qaybta jirka ah madow maaragtay isaga loo kariyo jilicsan loo jilciyo la shiilin waxaad ula jeedaa in hilibkii aan steak aan la shiilin oo biskeeti laga dhigin ama aan saliid lagu dubin biyo keliya lagu kariyo waad mahadsantahay sheekh waxaan jeclaan lahaa inaad bal dadka u sharaxdo qaabka ugu wanaagsan qofka marka uu sokor qabo uu daawada u qaadan karo qofku markuu daawada macnaha qaabka ugu wanaagsan kolle dhakhtarka u soo qoraya markuu dhakhtarku u soo qoro waxaa la rabaa waqtiyada inuusan isdhaafin uusan ta'khiir iyo taqdiim ama ka hormarin iyo ka dabamarin waqtigii loogu talagalay inuu ku qaato daawadiisa sida ahaydna u qaato isla mar ahaantaana ay la socoto daawo keliya wax ma tartee cunnada inuu si fiican u cuno cunnada inuu si fiican u cuno ay la socoto sheekh markaan intaasi kasoo tagno oo su-aalihii ku saabsanaa cudurka iyo qofka sida uu daawooyinka u qaadanayo waxyaabaha qofka u habboon waxaan jeclaan lahaa marka hore waxaa tahay sheekh culammada Nairobi ka mid ah isla markaana dadka in badan ay aad u yaqaanaan waxyaabaha badanaa aad qorto ama aad ku tacalluqdo waxay u badnaan jireen dhanka diinta maxaa kugu dhaliyay marka inaad buuggan intaan beej ka kooban isla markaana luuqada afka hooyo ku turjuman Soomaali ah inaad qorto bismillah hadda anagu culimada haddaan nahay dhinac kasta baanu bulshada kala soconnaa dhinac kastana inaan ka caawino ayaan diyaar u nahay marka buuggan markii u horreysay oo aan bilaabayay saan awalba kuu sheegay waxaan arkay dad fara badan oo dadkeenna ah oo sokortay qaba weliba dadka waayeelka ah u badnaadeen dad badan baa qaba marka dadkii maadaama aysan luqooyinkii kale ku akhriyi karin si ay iyaga laftooda mar walba dhakhtar ma agtaagnaanaysid moogtahay midda kale waxaa laga yaabaa dhakhtarkii markuu wax kuu sheego oo ku yaraa waxaa ka dheero waxaa isticmaal waxaa ka dheero waxbaad iska kala hilmaami kartaa sidaas daraaddeed inuu buuggii oo sidii dhakhaatiirtu ay u sheegeen loo soo maaragtay tarjumay af Soomaali inuu guriga u yaalo ruuxii oo maaragtay waqtiyada uu iska nasan yahay oo isaga madadaasho oo maaragtay tartiib u akhristo wixii markaa memorandum ay u samayso xusuus ay ku reebto oo uu markaas u baraatigareeyo sidii dhakhtarku ugu soo sheegay sidaasaan macnaha midda kale culimmada lafteedu maalan baa culimmada Soomaalida saan ognahay ninku waxaa laga yaabaa inuu tafsiir yaqaan inuu xadiid yaqaan inuu culumta kale oo maadiga wax badan ka yaqaan hadda inay u noqoto xataa dadkeena Soomaaliyeed ee walaalaha ah intii wax qori kartaa inay wax qoraan oo qof walba majaal wax ka qoro majaalkaanina runtii waxaa majaalka keliya oon qofna waxba ka qorin marka saasaan ugu doortay maadaama ruuxna uusan yacni ka qorin af Soomaali in macnaha dadkeenu bal luqadii Soomaaliga midda kale dhinaca kale luqadeena Soomaaliga in la soo nooleeyo hadda dadkii markii Nairobi ama wadamada dibadda loo kala yaacay waqtigii dawladii dhacday ka bacdi dadkii waxay ku wada hadlayaan luqooyinka Ingiriiskii iyo Sawaaxiligii iyo Faransiis qof walba meeshuu tagay luqadiibu kala soo laabtay marka si xataa ay u noqoto dadkeena balena wax akhriyaan buugaag badan baa hadda yaalo oo dad badan baa wax qoray laakiin waxaa laga yaabaa in intaas midna uusan ku soo jiidan oo kan ku soo jiito waa tiraa alla ilaa bal sonkorta aan iska fiiriyo aan ogaado maxaa horta sonkorta laga qaadaa maxaa asbaabaha keenaa maxay yihiin iyada lafteedu maxay tahay anuu sonkor ma qabaa inuu ruuxa laftiisa isweydiiyo markaana ay ku bixiso bal inuu buugga akhriyo iyo buugaagta kaleba si luqadeena hadda waxaan arkayay dadkii 24 sano ama 23 sano ka hor ka baxay wadankii hadda iyagu waayeelay soo laabanayaan ilmahoodii oo laala-eg oo markaa iyagu soo kacayo akhriskii iyo aqoontii iyo wixii ku hubaysan baa soo laabtay laakiin luqadii Soomaaliga ma yaqaanaan marka inay ku bartaan iyadana way tahay luqadii bal loo soo laabto oo maaragtay luqadii Soomaaliga inuu gadaal wax u akhrino gadaal ummad walibana waxaa la yidhaha qof waliba aqoontiisu waxay dhan tahay intuu wax akhriyo ummad walibana aqoonteedu waxay dhan tahay inta maaragtay ay la eg yihiin dadkooda aqoon-yahanka intay la eg yihiin bay maaragtay ummad waliba la eg tahay sidaas daraaddeed ummaddeeni bal inaan barro maaragtay markaan qorayay caqabadaa iga hor yimid dadka qaar waxay yidhahan
maxaad carabi ugu qori weyday qaar waxay yidhaha maxaad sawaaxili ugu qori weyday qaar waxay yidhaha maxaa ingiliish ugu qori weyday maya waxaan ku qorayaa baan horta af soomaali kabacdi haddii loo baahdo baahidu badato iyo codsigu qoladii ingiriis iyo sawaaxiliya u baahan waa loo tarjumi doonaa laakiin anigu horta ba soomaaligaas yaan rabaa inay hooyooyinka iyo odayaasha waayeelka ah oo seeraalayaalka ahaayo 74 iyo 5 yacni tegi jiray maaragtay ka faa'iidaystay qoraalkii af soomaaliga dadkaas inay akhriyaan baan rabaa ka faa'iidaystaan sheekh sheekh maxay kugu qaadatay buugan sida aan akhriyay ama intaan ku arkay wuxuu ka kooban yahay 22 cutub imisoo kugu qaata buugan inaad qorto runtii jaanis fiican baan iska haystay oo xafiiskaygaan iska fadhiyey marka waxaan samayn jiray galabkii markaan casarka maaragta ka baxo ilaa hameenkii aan cishaha ka tukado waan badanaa garaaci jiray waqtiyadaas anoo marmar baxaya leanna adiga laftaada inaad meel ilaa muddo dheer fadhido dhib bay ku keenaysaa sokortii laga digaya ooya lafteeda laakiin ilaa 2 saac oo kale inaan qoro kabacdina aan markaas soo jimicsado meelahaa soo warwareego cabbaar islii ku soo warwareego asxaab iyo waxunbaa teleefon kuu soo dirayo meelaha soo marmarto marka anigu hal bil baan ku qoray saad muqadimada ilaa meesha u dambayso ku yaalaan marka hal bil baan ku qoray laakiin habeentiisii iyo diyaargarayntiisii iyo qarashkii lagu daabacay raadintiisiibaa wuxuu qaatay runtii muddo dheer ugu qaatay sheekh cabdirashiid waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka maxaad tala ah oo aad siin lahayd ama barnaamijka aad kusoo gabagabayn lahayd dadka ku daawanayo ee sokorta qaba dadka idaawanaya ee sonkorta qaba waxaan kusoo gabagabayn lahaa buuggan hadda ka hor lama qorin waana buug aada idiin anfici doona insha allahu sida aan rajaynayo inaad akhrisataan inaad gadataan lacag yar weeye inaad gadataan kabacdina akhrisataan waa aniga laftaydana encouragement inaan buugaa kala qoro yay igu bixinaysaa taas horta waa xaggii buuggayga iyo maaragtay ka hadlay midda kale inay iyaga laftoodu ay nidaamiyaan waqtigooda oo sida buugga uu tilmaamayo iyagoo dhakhtarkoodana ka warhaynaya inay isu nidaamiyaan oo ay la noolaan karaan maaragtay iyagoo sokor qaba oo aysan maaragtay aysan noqon hopeless waxa la yidhaahdo ama qofku rajabeel inuusan noqon waydaa rajabeelin kuwa kaloon qabin oo maaragtay nagu aynu ka midnahay mathalana ilaahay ha naga hayo laakiin haddii aynu buugga akhrino innaga lafteenna waxaynu markaas iyada geli karaa inaynu macluumaadka isaga oo ku qoran aynu ka faa'iidaysano oo aynu sidaa uu u ishaarayo qofkii waqtigiisa qayb ka mida uu socdo mararka qaar uu jiim iyo meelaha iska galo isagoon ula jeedin yacni inuu maaragtay yacni jir dhisa keliya ee inuu dhidido xataa loo baahan yahay jirka dhismihiisuna wuxuu fududeeyaa in maaragtay iyada lafteeda jirka insuliinta ay si fiican u qaato oo saynu soo sheegna muruqyada iyo waxaas munaasib bay ku yihiin oo dadka badana aan muruqyada lahayn bay ku dhacaa cudurkan ta kale waxa weeye inay qofka uu akhriyo oo uu macluumaadka ku jira u ka faa'iidaysto si aan sonkortu mustaqbaliyan isa ugu dhacin qofka marka buugga rabo halkuu ka heli karaa buugga waxaa laga heli karaa dhammaanba buugshoobyada iyo meelaha isteeriyooyinka oo ku yaala isley sigis street ugu badan ayuu meelahaasoo dhan buu yaalaa weliba sigis street in allaaliya inta meelaha cajaladaha lagu duubo ama kitaabada iyo buugta lagu gado oo buugshoobyo ama maaragtay taabshoobyada gedi waa laga wada heli karaa qofkii kaloo u baahan oo kamiyad badan uga baahanna teleefonkooygu waa ku yaalaa waa loo soo diraya ama qofkii u baahan daawadayaal intaasi ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aan ku wareysanayay sheekh cabdirashiid cali nuur oo ah ka mid ah culamaa udiinka dalkani Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ahna qoraa islamarkaana diblooma ka soo qaatay beeraha waxaa sidoo kale 2 baajular ka haysta macalinimada iyo waliba kulliyadda al-shariica wal qaanuun waxaan barnaamijkan si gaar ah ugu eegaynay cudurka sokorowga oo islamarkaana nagu dhaliyay inaan ka wareysano markii aan aragnay buugga uu qoray oo la magac baxay iska ilaalinta iyo waliba iska daweynta cudurka sokorowga bilaa dhakhtar aad ayaan ugu mahadcelinayaa sheekha waqtigiisa wanaagsan ee qaaliga uu na siiyay
intaan barnaamijka mid lamada ku kulmi doono daawadayaal waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh aad ayaad u mahadsantahay shukran